السلام عليكم أصحابتا مركل السود وهذا ما أنتوا مركي لبات وهذا إنه كلنا وأنا أحد وأنا أفر يتبنك بش اللحاد جون سنة كلبضة كن إيه اللحية لباتنك أرميه مريكان كي إيران هشيسكي أي هذا ورد دقدقة أو كسوكرني مدحوين ترامب أو حقيقي إن هشيس لجاري هشيس كان محور دقيا sidoo kalena dawladda Pakistan oo dhaxdhaxaadinaysa Mareykanka waxaan ogeyn madaxweyne Trump in uu shalay oo sabti ahayd sheegay in heshiiskii Mareykanku iyo Iran ay gaadheen oo isfahamka ahaa maanta oo axada la saxiixayo laakiin arintaasi waxa carqaladeeyay duqeyntii ay dawladda Israa'iil duqeysay magaalada Daahiya ee koonfurta magaalada Beirut ee caasimadda Lubnaan oo xitaa Trump intuu wacay sida muuqaalkii hore aan idinku sheegay Netanyahu uu yiri war miyaad waalan tahay maxaad sameynaysaa madadaalka nabadeed oo in muddaha aan soo waday oo hadda gabagaba marayay ayaa doonaysa inaad carqaladayso marka labadoodana hadalla kulul ay isweydaarsadeen siiba Trump ayaa si aad ah u canaantay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu haddaba madaxweyne Trump ayaa goordhow bartiisa Truth Social-ka qoraalkan ku soo qoray madaxweyne Trump waxa uu leeyahay heshiis ayay wada gaareen dawladda Islaamiga ah ee Iran iyo waliba Mareykanka hadda waxa uu yiri heshiiskaasi waa dhameystiran yahay waa sida madaxweyne Trump uu bartiisa Truth Social-ka uu ku soo qoray waxa uu yiri congratulations to all dhammaanba qof kasta waan u hambalyeynaya caalamka dhan inuu ula jeedo ay arintan u muuqata marka wuxuu yiri hadda waxaan amrayaa in si buuxda loo furo marinka Hormuz iyadoo waliba wax lacag ah aan laga qaadaynin maraakiibta maraysa kolay isaga markii hore uma xirnayno Iran ay u xirnayd mar hadda waxa uu leeyahay waxaan si buuxda u amrayaa in la furo marinka Hormuz iyadoo waliba wax lacag aan laga qaadaynin maraakiibta maraysa waxana sidoo kale uu yiri si la mid ah amar ku bixinaya in si degdeg ah loo qaado go'doominta Mareykanku ay saareen Hormuz sidoo kale waxaan ognahay Mareykanku dhinac ay go'doomin ka saareen dawladda Iran saliideeda in laga dhoofiyo ama maraakiib ay galaan oo soo qaadaan ama ay ka baxaan ay diidanayeen kuwa badan waa kuwii celiyay kuwa tiigantala lagu dhuftay qaar waa kuwii la wareegay marka waxa uu yiri arintaasina waan amrayaa ciidamada badda go'doominta ay saareen Iran inay qaadaan marka waxa uu yiri maraakiibta guud ahaanba caalamka waxaan idin leeyahay matooradina shida marka hal shido leeyahay dhammaanba maraakiibtaasi oo hadda qaaqaano waxana sidoo kale leeyahay let oil flow saliidu haqul qosho macnaha waxay macnaheedu tahay maraakiibtu hadda qaaqaano saliida meeshii ay u wadeen ha gaarsiiyaan guud ahaan caalamka sidaasi ayaa madaxweyne Trump uu bartiisa Truth Social-ka uu goordhow ku soo qoray oo leeyahay hadda waa dhameystiran yahay heshiiskii Iran iyo Mareykanka waxa kaliya oo ka dhiman waxay tahay maadaama lagu heshiiyay qodobadii laga wada hadlay in la saxiixa ayaa dhiman hadda waa dhameystiran yahay ayaa madaxweyne Trump uu xaqiijiyay sidoo kale dawladda Pakistan oo labadan dhinac Iran iyo Mareykanka ba dhaxdhaxaadinaysay ra'iisul wasaarahooda Shahbaz Sharif ayaa isaguna qoraalkan bartiisa X ku soo qoray Shahbaz Sharif waxa uu leeyahay kadib wada hadallo adag oo ay wada yeesheen dhinacyada Mareykanka iyo Iran waxaan ku faraxsanahay in aan ku dhawaaqo in heshiis nabadeed ay wada gaareen Mareykanka iyo waliba Iran waxa uu yiri labada dhinac waxa ay ku dhawaaqeen inay si degdeg ah oo joogto ah ay u joojinayaan howlgallada military isla markaana dhammaanba dhinac kasta oo xitaa Lubnaan ay ku jirto macnaheedu waxay tahay in wax duqeyna aysan ka jireen marka arintan Israa'iilna waa ay qusaynaysaa Hizbullahna Israa'iil ma duqeyn karaan Israa'iilna Hizbullah ma duqeyn karto waa sida ay Iran doonayso Iran waxay taagneed xabajoojintu waa inay sidoo kale Lubnaan ay ka dhaqan gashaa Israa'iilna ay joojisaa marka Trumpna waa kii Netanyahu dhowr jeer arintan ku canaantay marka waxyaabaha lagu heshiiyay hadda waxa kamid ah marka in dhammaanba howlgallada military si degdeg ah oo waliba joogto ah loo joojiyo isla markaana ay ku jirto Lubnaan marka Netanyahu waan arki doonaa waa kii dhahaya heshiiska Iran iyo Mareykanka ay gaaraan inaga nama quseeyo hadii uu hogaansamo waan arki doonaa Trumpna waa kii ugu hanjabay oo yiri niyahow hadii aad howshan ku sii socoto kaliga ayaad noqon doontaa oo karabkaada waan ka bixi doonaa mana ku caawin doono ra'iisul wasaaraha Pakistan marka Shahbaz Sharif isagoo sii wata ayaa waxa uu yiri
in xafladda saxiixa rasmiga ee heshiiskan lagu saxiixayo waxay dhici doontaa maalinta Jimcaha ee soo socota 19 bishan June aynu ku jirno dalka Switzerland ayayna ka dhicin doontaa sida markii horeba qorshaysnayd magaalada Geneva ee wadanka Switzerland in ay ka dhacayso markaas kadib waxa uu mahad celiyay Mareykanka iyo Iran wuxuu yiri sida ay uga go'an tahay ama ay uga go'needba in xal diblomaasi laga gaaro khilaafkan waan uga mahad celinayaa sidoo kalena wuxuu yiri dawladda Qatar iyo hoggaankeeda ayaan sidoo kale uga mahad celinayaa in dhexdhexaadinta doorkii ay ka qaateen dawladda boqortooyada Sacuudi Carabiya ayuu u mahad celiyay sidoo kalena dawladda Turkigana waxa uu yiri iyaguna door muuqda ayay ka qaateen heshiiskan dhexdhexaadinta labada wadan ee Iran iyo Mareykanka waa u mahad celiyay intaas kadib ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif waxa uu intaasi uu ku sii daray wuxuu yiri maadaama hadda aan haysano heshiis nabad oo la isla gaaray waxa uu sheegay dhexdhexaadiyaashu waxa ay gabagabayn doonaan kuway wadi doonaan kulamo kale oo joogto ah toddobaadkan waxana kulamadaasi ay horudhac u yihiin dhaqangelinta heshiiskan ra'iisul wasaaraha Pakistan ayaa sidoo kale hadalkiisa ku daray waxa uu yiri aasaas ayaa u sii sameyn doona heshiiskan waxana jiri doono yiri kulamo kale oo farsamo ka hor inta aan la gaarin xafladda saxiixa marka sida muuqata hadda heshiiskii Mareykanka iyo Iran ay wada gaareen sida hadda Mareykanka Iran wali ma aysan ka hadlin dhankeeda wax wara ma uusan ka soo bixin laakiin sida Trump uu bartiisa Truth Socialka uu ku sheegayo uu leeyahay hadda heshiiskii Mareykanka iyo Iran ka dhaxeeyay waa dhameystiran yahay marinka Hormuz waa in la furaa Mareykanka ciidamada Mareykankana waxaan ku amrayaa go'doominta inay qaadaan waxa uu sidoo kale sheegay in maraakiibta marinka Hormuz fadhisana ay shidaan matooradooda ay daaraan shidaalkana halkii ay u wadeen ay geeyaan dhinaca kalena dhexdhexaadintan waday hadda waxa ay leedahay heshiiskii waa dhameystiran yahay waa la isku afkartay Jimcaha soo socda ayaana la saxiixayaa oo 19 bisha ah Switzerland ayaana lagu saxiixi doonaa inta ka horeysa oo ka harsanna muddada 5 maalmood ah ee soo socotana arrimo farsamo oo kale ayaa sii soconaya oo aasaas looga dhigayo heshiiskan sidii uu dhaqan gali lahaa sida ay sheegayaan kulay dawladda Iran xaggeeda ilaa hadda wax wara ma aysan ka soo bixin Israa'iil sidoo kale dhankeeda wax wara ma uusan ka soo bixin laakiin waan arki doonaa iyaguna sida ay uga hadlaan laakiin hadda xaqiijintan waxay ka imaanaysaa Mareykanka iyo sidoo kalena oo dhinac kamid ah dhinacyadii ishayay kamid ah iyo dawladda Pakistan oo ah dawladii dhexdhexaadinaysay labada dhinac oo dhahaysa kadib wada hadalla adag heshiiskii waa la isku afkartay xilliga iyo goobta lagu saxiixayna la shaaciyayba Jimcaha soo socday Switzerland iyo 19 bisha ayaa leeyahay saaxiibayaal waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha aad iyo aad u mahadsantiin warkaasi degdeg ah ayaan rabay inaan idila socodsiiyo intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo Mareykanka iyo Iran heshiiskii ayaa hadda war degdeg ah oo ka soo kordhay madaxweyne Trump oo xaqiijiyay in heshiis la gaaray heshiiskan muxuu dhigayaa sidoo kalena dawladda Pakistan oo dhexdhexaadinaysay Mareykanka iyo Iran iyaduna waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday in labada dhinac ay heshiis isla qaateen heshiiskan goorma ayaa la saxiixayaa xageesa lagu saxiixayaa dawladda Pakistan ayaa shaacisay arrimahaasi oo idil ayaa raba inaan idin la wadaago balse marka hore soo dhawaada